حدود كان هذا اللي سوها اللي هذا تكرر لو حبديين أو إذا ما بوتلاند تاع أي كحبديين خاتمه إيه سومالي لما حكوا شيء هدي لصور مركز تو خاتمهم بده إيه سومالي لنا أي عاوز مركز دجال كان هو دجال لو تهجر إنه ود فاعل كان مركز مقاطمه إيه بوتلاند أي وده حياة بس سومالي لان إيه وهو حياة بوتلاند wuxuu u dhaxeeyaa oo magac ahaan loo siiyay waa Somaliland Puntland laakiin meesha waxa xukuma ee maamula ee degan waa Khaatumo ee dalkaas iska leh awoodda kuwa ka dagaalamaya xagga iyo kuwa xagga dagaalamaya labaduba waa reer Khaatumo marka wana kala saaray wixii waxa la yiraahdo ama qaarkiisnimada marka waa la kala saaray wax loo kala saaray wixii dagaalku muxuu yahay muxuu soo dhacaya dagaalku wuxuu socdaa oo u dhacaya waa dhibaato ka timid dhinaca Puntland oo iyaga ayaa bilaabay inay dadka xabadayaan meesha maraya annagoo gurigayga joogna marka balanka wuxuu ahaa in hadiiba uu bilaabmo in la iscaabiyo ama calaamadaha maada dhinaca iyo Soomaaliya maanta waa waqooyi iyo koonfurta kale xuduudka wixii xaal ka xiga marka la yiraahdo gobolka cagaaran waxa ka soqeeyo waa Somaliland ama waxa la yiraahdo Somali North annagu waxaan nahay dad ilaahay ku abuuray North Soomaaliya waxaan nahay dawladda Khaatumo waxaan nahay dal ka tirsan dalka Soomaaliya laakiin haddana xuduud baa jira noo dhaxeeya annaga iyo Puntland marka wuxuu dagaalku u taagan yahay ama u socdaa dhibaatada ay iyagu keeneen ee ahayd in lagu xabadiyo maalin kasta dadkii marayay u dhashan meeshan hadeerna dagaal weyn oo ama la isfala saaray ama dad ku dhinteen caaw aan ka sheekayn karno male waa la soo fadhiyaa waxa socoto waa wada hadal waxay u dhaxaysaa Puntland iyo dadkan reer Khaatumo ee degan Khaatumo ee lagu magacaabayo magac ahaan baa loo siiyay Somaliland laakiin waxa meesha jooga ciidanka tagay ciidanka jooga waa ciidan ka socda Khaatumo oo ay ku soo socdaan Somaliland واتاي marka ciidamadan hadda ay Puntland dagaalameen oo israasaasayeen waxay ahaayeen ciidamo ka tirsan Khaatumo ee ma ahan ciidamo Somaliland waa territory-ga iyo magaca wadanku uu leeyahay marka British Somaliland ciidamadan lagu sheegayo lagu leeyahay waa ciidamo Somaliland waxa weeyaan ciidamo Somaliland iyo ciidamo Khaatumo oo socda wata dagaalka waxa rasmiga ah ee uu ka bilowday maxay dhibaatada ay ka bilaabantay waxa weeyaan laba weerar oo ka horeeyay baa dhacay bishii December labada weerar oo ahaa kii qorilay ee ay Puntland ku soo qaaday iyo kii lagu weeray meeshan hadda la isku hayay ee la isku horfadhiyay ee tukaraq oo lagu xabadeeyay laguna حبة سفي عن الله ولد عي حبة ده أدو بدن نك جراد لين جراد شاب غير إسماعيل صوت معي الصوت إلا هذا اللي بقرأ هو كبر كي محجة يبتله محل وحل يكاف حلنتي جواب توارد هذا أخوتي حلنتي سؤال أخوتي اللي جت جوابه اللي جت هذا مشي وضدك لها أي مامورا وحسن السيب ونا يا جماعة إن اللي أوراني وحلا يسكو هايستا وبتله يسوع ما يسكو هايستا ما لا يهدو خاطر مريض ودل عن إليسكو هيسم ودل شراء ودل يتشري وبس ما حتى سببت أسوأ لو يصير إنسان مركا سوماليلاند وأوديتنتين بوتلاند سؤال السؤال الرئيسي بوتلاند وحكري أن يسكو هيني وحي تولمو يودا دلت وحي هذا الدولة بانو هاي بوتلاند أنا وحنا هاي دولة خاطرة ومقع عليه ودوك لغا يغانو oo dad noola oo jiray oo wargo jiray Soomaaliland waxay ogolaatay wada hadalka Khaatumo ee la gashay oo ahaa inay Khaatumo iyo Soomaaliland hadal oo baarlamaanka Soomaaliland uu fuliyay oo ka daba taradooday Puntland waxay tiri Khaatumo la yiraahdo ma jiro waxa ka khaldan oo aad loosan tahay Allahu naxariistay Abdullahi Yusuf iyo ninkan hadda faroole waa ragii yiri wax u dhaxayn kara garowe iyo hargeysa oo maamulka ma jiro waa kelmad cad oo ay ku qoran tahay YouTube ka jirto marka ninka ogol inuu kula hadlaado waa Khaatumo ninka ogol jiritaankaaga oo kula aniga u dhaartay sool iyo salaad lacay Abdullahi Gasbay weligiis meel ay ku taalada agma dhigin ay taagannahay laakiin madaxweyne ku xigeenka Puntland waxa uu ka soo jeedaa Soomahan deegaanadan hadda aleedin Khaatumo ayaa qof نعم سول يسناق يعني
حبر waxaa ka shaqeeya rag ka yimi Somaliland rag ka tagay Puntland rag ka tagay Khaatimo de qofku waa shaqo tagi karaa qofku ceeb bale shaqaysto wasiirada ku leeyahay Somaliland wasiirada xamar ku leeyahay marka wuxuu la mid yahay dadka shaqada tagay ee u shaqo tagay Puntland kaligiisna ma waa badan yihiin dad badan waxay isweydiin karaan in qofka u dhashay Khaatimo deegaanadaas oo gobolada Sool iyo Sanaag ka soo jeeda Puntland ka tirsan sababta keeni karta in qof kale uu ka sheegto gobolka halka kuwa Somaliland taga oo ku sugan sidoo kale la dhigi karo wax u diidi kara deegaanadii ma jiraan marka haddii dadka deegaankaas u dhashay hal meel ku midaysnayn soo ma noqonayso wax mar walba taagnaanaya oo qolana xagga ay isfahmi karaan qolana kale xagga kale isfahmi karaan mawduucu waxa weeye in qofka reerkan u dhashay uu shaqo tagayo oo u shaqo tagayo meel kale laakiin mabda'iyan nin wal oo ka shaqeeya Garowe Hargeysa xamar hanoqdo waxay ku midaysan yihiin oo ka dhan oo ogyihiin oo naftooda ku jirta inay reer Khaatimo yihiin waxna qabsan karaan sababta keentay inaan Somaliland u badano oo dawladda nagu abuuray North Somalia Somaliland waxa la yiraahdaa waa North Somalia annaguna de North Somalia alla nagu abuuray sababta keentay marka hadda taraho madaxweynaha Puntland waa nin reer ka dhashay waa waajib waa nin reer ka dhashay laakiin waa nin u shaqo tagay reer kale wuxuu la mid yahay ninka xamar u shaqo tagay ee ka ah wasiirka ka ah maareeyaha ka ah ciidanka Hargeysa ku ka tagay xamar bay tagay oo ka shaqeeyaan marka nin shaqo tagay xisaabta lagu daro